السلام عليكم كل وعن صاحب يال halkani waa Caasim Media ku soo dhaw channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe dheh hadii aad horey noola joogteen ha ilownin in muuqaalkan like saarto ku soo dhaw mar kale muuqaalkeena maanta guurka inuu nolol iyo naruuro yahay hadaad hesho qof aad nolosha isla fahantaan baan niyada ku hayay laakiin nin gaar ah oo aan naawilayay ma jirin kolbaki ila hadlo ayaan anigana nacam dhahayay oo aan la sheekaysan jiray waxaan ahaa qof waxyaabo badan isweydiinaysa oo haasabaha uguma jirin inaan xaaje ka helo balse wuxuu ii ahaa dugsi aan wax badan ka barto maalin kasta casharo cusub ayaan baran jiray cilmi aanan horey u aqooninna waa iga kordhi jiray bulshada iyo xaafaduba waxay igu waanin jireen inaan iska ilaaliyo dhowr nooc oo ragga ka mid ah ninka dibjirka ah ninka saboolka ah iyo ninka iga yar anigoo fikirkaas aaminsan baa soo koray waliba waxaan ku kalsoonaa in tallaabadaasi tahay mid dhaxalgal ah oo waayeel soo jabay isiiyay muhiimna ay tahay inaan dhug u yeesho markii aan bilaabay shukaansiga waxaan raacay qaacidadii aan sitay oo ahayd inaan fogeeyo ninkii saddexdaas qodob aan ku arko waxaan jeclaa inaan guursado wadaad maadaama wanaagooda aan ka maqlay waalidka sidoo kalena waxa ku xirneyd farxadda deegaanka aan joogo anna sumcad iyo sharaf bay ii ahayd oo dad badan baan duca iyo jacayl kaga helayay muddo ayay igu qaadatay inuu wadaad ila hadlo sidaad ogtihiin hablaha badankooda waxay sugaan in iyaga la barto anigana kuwaasi baan ka mid ahaa oo si kasta oo aan wadaad qalbiga ugu hayo haddana waan samrayay inta aan la kulmayo wadaad idanaynaya sanado kadib waxaa ii hirgashay rajadeydii aan waqtiga badan dhowrayay oo waxaan qadka iska baranay nin wadaad ah Facebook oo ahayd halkaynu ka wada hadalnay ayaa waxa u yaalay kitaab iyo sawirro qamiis uu xiran yahay wuxuuna ii sheegay in uu yahay macallin dhiga madarasadaha quraanka lagu barto si ka duwan sidii aan u soo dhaweyn jiray wiilasha haasawadoonka ah ayaan u qaabilay isaga waan u hanweynay oo waxaan hubay inuu yahay qof aan ka helayo wax kasta oo wanaag iyo farxad ah saddex habeen markaan haasaweyna ayuu iga codsaday guur anigana arintaasi waxay igu noqotay yaab iyo fajaac maadaama uu guurka yahay go'aan adag oo saameyn xooggan ku leh qofka mustaqbalkiisa waxaan aaminsanaa in laga fiirsado oo la falaqeeyo waqti ku filan la siiyo wada hadalka guurka ka horeeya laguna fududaanin go'aan qaadashadiisa oo la iska barto qofka aad nolosha la wadaagayso in badan wadaadkii wuxuu ii sheegay in kaftanka iyo sheekada dheerba ay tahay dambi iyo ceeb oo aan iska daayo habeen dambana aan la kulmo habeenka xigana uu isoo dooni doono ama kaag iyo anfiriir buu ila noqday warkiisu balse xadiisyo badan markuu ii soo daliishaday ayuu i xirxiray oo aan ereyba u celi karin waayay kuna raacay fikirkiisa fiidkii markii la gaaray baan si fiican u labistay muuqaalka waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay raggu xiiseeyaan ee isa sii shiidba igu jirtay oo adigoo kala jeeda ha tagin goobtii balanta wadaadkii markuu indhaha iga qaadayba wuxuu igu salaamay canaan iyo qaylo wuxuu ii sheegay inaan ahay gabar xun oo suuqa ku jirta waliba aan isaga ka doonayo howlo waaweyn oo afkaygu ka xishoonayo kuma xanaaqin ee waxaan u muujiyay ixtiraam anigoo hoosta caray iyo ciil bistayla ah haddana waan xushmeynayay maadaama aan diinteena suuban jeclahay isaguna iga aqoon badan yahay waxaan dhaqan u lahaa inaan ku tixgeliyo qofka wuxuu iga yaqaano 20 daqiiqo markaan wadada taaganahay ee uu xisaabinayo qarashkii meherka iyo gabaatigii uu reerka u keeni lahaa ayaan murannay waxaan isku qabsanay siduu wax u kala reebayo iyo baqiilnimadiisa meherkan ka codsaday ee ahaa $5,000 wuxuu ka dhigay $500 cabaar markii doodii noo socotay buu kor ii soo fiiriyay intii hore hoos buu fiirinayay oo indhaheenu isma fiirinaynin wadaadkii wuu isbedelay xisaabtiina wuu xiray kadibna ammaan buu igu harqiyay waxa ereyadiisii ka mid ahaa waxaa taagan tahay waqtigii ugu fiicnaa oo gabar yar oo qurux la soo kacday baa tahay xaqay ku qarsooneed innaba caadi ma tihid xoogaa kadibna wuu igu soo durkay oo faraha buu ila soo galay naxdintii lama finaanka ahayd ee aan ka qaaday orod baan isdhigay si aan u badbaado wadaadkii intaan ka cararayay ayaan meel aan fogeyn ku kufay waayo kabadha dheer baan gashanaa meel baa ila siibatay aanan hadda xasuusan siday u ekeed socodkiisii buu igu soo gaaray anigoon weli kicin wuxuu igu yiri kac huuna oo kor isku qaad kuma caawin karo oo waa xaaraane intaan kacayay buu haddana igu yiri waxaa laga jarayay dambigii aad gashay ee magaciisu ahaa israaf sababtoo ah dharkaani qaaliga ah maxaad u iibsatay anigoo afkii juuqda i gabay oo isleh kan maxaa ii geeyay ayaan meeshii ka soo gurguurtay oo gurigeennii tagay qof kastoo garweyn qaba shaqo male baryahan waxa socdo run male kan ku dilo gadalka tubto walaalo male